kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka fagaare production qodobada aan idin hayo waxa kamid ah kulan qarsoodi ah oo magaalada Muqdisho ku dhex maray taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yaasiin iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Axmed xogo qarsoon ayaan idinkaga hayaa waxyaabaha ay ka wada hadleen guddiga doorashada heer federaal oo soo bandhigay sir ku saabsan codsi uga yimid madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor shir xasaasi ah oo maanta ka furmaya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaana ka qayb galaya siyaasiin miisaan culus leh maamulka Puntland oo joojisay doorasho lagu qaban lahaa magaalada Gaalkacyo iyo dood ka taagan doorashadaasi faahfaahin laga helayo qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon wararkeena haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar sidoo kale like saar muuqaalka si dad badan ay u daawadaan warkii oo faahfaahsan kulan qarsoodi ah ayaa magaalada Muqdisho ku dhex maray Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo taliyaha Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ilo xogogaal ah oo ka tirsan xisbiga himilo qaran ayaa inoo xaqiijiyay in magaalada Muqdisho kulan qarsoodi ah ay ku yeesheen taliyaha nabadgelyada Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo hogaamiyaha xisbiga himilo qaran Sheekh Axmed wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka intiisa badan diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo arrimihii ugu dambeeyay ee soo kordhay gaar ahaan qalqal amni ee dalka ka jira balse xogo hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu Shariif oo kamid ah musharaxiinta mucaaradka ee miisaanka culus leh uu kala hadlay sidii uu ugu qancin lahaa guddiga doorashooyinka qaranka una taageeri lahaa mid ka mid ah xubnaha xisbiga himilo qaran oo magaciisa diiday in la shaaciyo ayaa noo sheegay in kulanka labada mas'uul oo socday ku dhawaad 2 saac ay kaga wada hadleen marxaladda dalka uu ku jiro iyo sida lagaga saari karo shacabka walwalka ay ka qabaan mustaqbalka dalka iyo caqabadaha doorashooyinka ku gadaaman ee ka imaanaya musharaxiinta mucaaradka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Axmed oo hadda ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u diidan guddiga doorashooyinka ee ay soo magacawday dawladda waxayna dalbadeen isaga iyo mucaaradka in la kala diro guddiga doorashooyinka dadka siyaasadda la socda waxay qabaan in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay qarka ka tuurayaan dalka isla markaana aysan wadin xal lagu gaari karo doorasho loo dhan yahay kulanka Shariif iyo Fahad Yaasiin ayaa ku soo aadaya xilli musharaxiinta mucaaradka ay ku sugan yihiin magaalada Garoowe oo ka dhacaya shir looga hadlayo arrimaha dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka kaasoo ay soo qaban qaabisay macadka Heritage guddiga doorashada ee lagu muransan yahay ayaa shaaciyay inuu mar kale dib u dhac ku yimid xilligii loo qabtay doorashada aqalka sare maanta ayaa la qorsheeyay inay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ay soo saaraan liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare balse qoraal ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa lagu sheegay in waqtiga la gaarsiiyay ilaa 5 January iyadoo toddobaad lagu daray guddiga waxa uu la wadaagayaa madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eg tahay 5 January 2021 halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyay in la qabto inta u dhaxaysa 7 ilaa 14 January sanadka cusub 2021 ayaa lagu yiri war saxaafadeedka guddiga ayaa qarxiyay xiriir dhexmaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor waxayna war saxaafadeedkooda ku qoreen isbeddelka jadwalkan wuxuu ku saleysan yahay codsi guddiga doorashooyinka uga yimid madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo asteeyay doorashada aqalka sare arintan ayaa u muuqata mid si kul talagal ah loogu beegsaday madaxweynaha Galmudug oo magaciisa guddiga shaaciyay kadib markii uu dhawaan war saxaafadeed wadajir ah la soo saaray madaxweynaha Puntland kaasi oo lagu dalbaday in xal loo helo khilaafka ka taagan doorashada Qorqor ayaa shaaciyay siyaasad uu dhexdhexaad isaga dhigayo marna waxa uu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweyne Farmaajo laakiin waxa hadda muuqata inuu culays weyn ka soo saarmay dhinaca madaxtooyada kuna qasban yahay inuu mowqifkiisa cadeeyo guddiga doorashada heer federaal oo ay ka maqan yihiin xubnaha Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay in xilliga dib loo dhigay doorashada aqalka sare lagu dhameystirayo howlaha qabyada ah ee dhanka qabashada codsiyada musharaxiinta iyo diyaarinta agabyada iyo deegaanka ay ku shaqeynayaan guddiyada maamulaya doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed magaalada Garoowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland waxa maanta ka furmaya shir looga xaajoonayo doorashada dadweyne oo Soomaaliya ka dhacda sanadka 2025 kadib markii lagu guuldareystay in dalka laga hirgeliyo afti dadweyne 2016 iyo 2020 shirka waxa lagu martigeliyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka madaxweynayaal hore ra'iisul wasaariye hore ee dalka madaxda maamul goboleedyada qaarkood ururada bulshada rayidka iyo dad waayajoog u ahaa tixanaha dawladaha ka soo bilowday Djibouti sanadkii 2000 waxaa laga dhageysanayaa aragtida ka qaybgalayaasha iyo sida looga gudbi karo caqabadaha hor istaagay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda
2016 iyo 2020 si xal loogu helo ka gudubka caqabadahaasi. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in kulankan uu ka soo baxo maadaama maamulkiisa uu nasiib u yeeshay martigelinta kulankan oo markii ugu horeysay lagu qabanayo gudaha Soomaaliya. Siciid Deni oo kulamo gaargaar ah la qaatay martida ka qaybgalaysa shirka looga hadlayo sida dalka ay uga dhici karto doorasho dadweyne iyo shacabka awoodda doorashada dib loogu celiyo. haddaba suurtagal ma tahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho dadweyne 2025 maadaama lagu guuldareystay 2016 iyo 2020 oo hadda aan ku jirno. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkaystay in hore loogu socdo in la qabto doorashada dadban ee lagu muransan yahay. xogta aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu culeys ku saaray guddiga ay dawladda dhistay ee doorashada inay dedejiyaan doorashada siibatan aqalka sare oo madaxtooyada qorshaysay inay ka dhacdo magaalada Muqdisho iyo ugu yaraan 2 maamul goboleed ka hor 15 January 2021. shalay waxaa xarunta gaadiidka ee booliiska degmada Cabdicasiis kormeer ku sameeyay xubno ka mid ah guddiga doorashada ee lagu muransan yahay, halkaasi oo loo diyaarinayo in lagu qabto doorashada sanatarada ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland iyo kuwa Banaadir. madaxweyne Farmaajo oo culeys ka soo wajahaya beesha caalamka 2 maamul goboleed iyo musharaxiinta xilka kula tartamaya ayaa ku riixaya maamul goboleedyada taageersan ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug inay qabtaan doorashada sanatarada aqalka sare horaanta January 2021. beesha caalamka ayaa dawladda ugu baaqday markii saddexaad inay xal u hesho muranka ka taagan doorashada isla markaana ay kulan la furto maamul goboleedyada iyo musharaxiinta si loo helo doorasho lagu wada qanacsan yahay. xubnaha ku dhow madaxweyne Farmaajo ayaa laga soo xigtay inuu ogol yahay wax ka bedelka xubno kooban oo ka mid ah gudiyada heer federaal ee doorashada, laakiin aysan jiri doonin kala diris gudiyada doorashada ee lagu muransan yahay. qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo dhawaaqiisa laga maqlay inta badan xaafadaha ka tirsan magaalada Muqdisho. qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay gaariga xildhibaan hore ahna siyaasi caan ah oo Muqdisho ku sugan Muxudiin Xasan Afrax xilli uu marayay agagaarka xarunta degmada Kaaraan, gaar ahaan meel u dhow garoonka kubadda cagta ee Qoobdooro. sida ay dad goobjoogayaal ah u xaqiijiyeen Fagaare, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay hal askari halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen, waxayna askarta dhammaantooda ahaayeen ilaalada Muxudiin. marka qaraxa lala eeganayay gaariga ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu san saarneen xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax. ciidamo ka tirsan booliiska degmada Kaaraan ayaa tagay halka uu qaraxa ka dhacay iyaga oo goobta ka qaaday meedka askariga iyo kuwa dhaawacmay, waxaana sidoo kale la sheegay inay sameeyeen howlgal dad badan lagu soo qabtay. magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya qaraxyada miino ee dhulka lagu aaso iyo kuwa gawaarida lagu xiro kadib markii ciidamada dawladda ay al-shabaab ka hor istaageen inay gawaarida qaraxyada laga soo buuxiyo soo geliyaan gudaha magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo doorasho lagu qaban lahaa gudaha magaalada Gaalkacyo kadib muran xoogan oo hareeyay doorashadaasi. Sanyare ayaa faray gudoomiye ku-xigeenka Gaalkacyo inuu joojiyo doorashadaasi oo ka dhici lahayd deegaanka wadajir oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah. warqad ka soo baxday xafiiska Cabdiladiif ayaa waxaa lagu sheegay in deegaankaasi uu yahay mid istiraatiiji ah isla markaana loo baahan yahay in marka maamul loo sameynayo loo maro wada sax ah si looga baaqsado xasilooni daro. sidoo kale wuxuu ugu baaqay maamulka Gaalkacyo inuu wada tashi geliyo doorashadaasi si xal looga gaaro muranka ka dhashay. ugu dambeyn wuxuu ka dalbaday shacabka in laga wada shaqeeyo xasiloonida gobolka iyo sidoo kale nabadgelyada guud ee deegaanka. waana geynta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku mahadsantihiin daawashada warkeena ee nabadgelyo.